نعم أجر العاملين نعم دار المتقين سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد كتاب سجود القرآن بسم الله الرحمن الرحيم wuxuu kitaabu yahay sujuudaha qur-aanka lagu sujuudayo waa sujuudu tilaawa waxa loo yaqaano aayadaha ku dhamaanaya sujuuda ku dhamaanaya in lagu sujuudo ama salaad gudaheeda lagu sugan yahay ama dibadda laga joogo salaada axaadiisii ku timi imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala tilmaamaya باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها وحو باب ياهي ما جاء وحي كيمي في سجود القرآن قرآن كسجود سي وسنتها سنديد قال وحول البخاري حدثنا محمد بن بشار وبندار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر البصري قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني قال وحولي سمعت عن مغلي الأسود ابن يزيد النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال وحولي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحو أخري النجم سورة والنجم اللي يلاهده بمكة مكة انتانوا سوه هجرون فسجد وكو سجودي فيها قدهد وسجد ولا سجودي من معه عد معي ساعتين ولا سجودي غير شيخ مويانه شيخاس أخذ قاتي كفا حنطوبا مسعب ومن حصن قرورها أمتشية أو تراب أمعيدة فرفعه كربه وقاضي إلى جبهته فوديس سيوغ سجود قعنتيس وقال وحولي يكفيني وحا يغفلا هذا انت سايغفلا فرأيته وحنارك بعد ذلك انت دبديت قتل يسقول لدلي كافرا قال لما يسقول لدلي وانا أمية ابن خلف ركلنا والله شاغي لكن صواب هو أمية ابن خلف سيدا كتاب التفسير باب تفسير سورة النجم وكفى فاهن دونه إمام البخاري وقعدين دون الروايات كاس حديث كان وحو تلمام يا نبي عليه الصلاة والسلام حلقي مكة وشوقي سورة النجم وكل ما نيسى فاسجدوا لله واعبدوا آيات سجود كل ما نيسى نبي عليه الصلاة والسلام إنه كسجودي وحنا لا سجودي قال دي حلقات شوقتي مشركين تبا لا سجودي وحن كائن أمية بن خلف oo isaguna sacabkiisa ku sujuuday intuu ciid ku soo qaaday maxallu shaahidku waxa uu yahay sujuudu tilaawa aayad sujuud leh qofku hadduu akhriyo in loo jideeyo ama ay sunno tahay in lagu sujuudo jumhuurtu waxay qabaan inay sunno tahay maalikiyada xanaabilada iyo shaafiiciyadu alxanaabila washaaficiyya waxay yiraahdeen waa sunna muakkada وسنة لا أتكيي مالكيتنا والله لكن ما السنة مسوى فضيله ما السنة لا أتكيي مسوى فضيله أشرون بلغيه لي لكن السنة لا أتكيي ما هذا نسكو صد ضمن الجمهور توحن حنفية كاهي وحيلين وسنة حنفية ده وحي قبان إنه واجب تاهي يقول دليشان إياه أدلة الماميس فاسجد لله واسجد واقترب أوامرت النوعاسة
irkacuu wasjuduu inuu alla subxaanahu watacaala ina farayo in la sujuudo. raajixuna waxa uu yahay sidaynu arki doonno imaam albukhaari baab buu inoo keenaya inaan la sujuudin oo aanay waajib ahayn. insha allahu tacaala baabkeeda waa inoo keeni doonaa, waana sida jumhuurtu ay qabaan. sujuudu tilaawa fadaaisheeda waxaa ka mid a xadiidkii saxiixu muslimka ku yimi ee nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam ida qara'a bnu aadama asajda, ibnu aadamku aayad sujuudeed haddii uu akhriyo waxa weeye adbara shayطaanu yabki. bini aadamku markuu aayad sujuud ku dul yimaado oo uu ku sujuudo shayطaanku waa ooyaa. ictazala shayطaanu yabki, isagoo ooyaya ayuu daba jeediyaa ama fogaadaa. wuxuuna yidhaahdaa umira bnu aadama bالsujuudi fasajad falahu اljanة waumirtu bالsujuudi faabaytu faliya الnaar. ibni aadamkii waxa la amray inuu sujuudo, waa sujuuday, jannaan uu ku galay. anigana waxa lay amray inaan sujuudo, waan diiday, waxaanan galay naar baan galay. sujuudaasina ida qara'a bnu aadama asajdata fasajad waa sujuud tilaawa, sujuudda akhriska wey. markaynu kitaabka alle subxaanahu watacaala ka hadlayno aayadaha sujuudda ku yimi 10 waa la ysku waafaqsan yihi. 10 sujuudood ama 10 aayadood waa la ysku waafaqsan yihi. guud ahaan waa 15 waa 15. 11 baa la ysku waafaqsan yihi ama 10. waxaa la ysku hayaa suurat اlxaj sujuuddeeda labaad, yaa ayuha aladiina aamanuu irkacuu wasjuduu wacbuduu rabbakum, sujuuddeeda labaad, iyo saad oo xadiidkeedu inoo iman doono wakhara raakican waanaab. sujuud ma tahay mise maaha, iyadana waa la ysku hayaa. 3 sujuudood ee ku sugan suwar lmufasal waa wاlnajmi oo min طiwaal اlmufasala iyo alinshiqaaq wida quri'a calayhim اlqur'aanu laa yasjuduun iyo alcalaq aayaddeeda ugu dambaysa iqra bismi rabbika aladii khalaq aayadday ku dhammaanayso wasjud waqtarib. 3 mufasalka ah iyo suurat اlxaj 2 sujuudood bay leedahay, tayda labaad iyo suuratu saad. 5taana khilaaf baa ku jira, 5taana culimmadu way isku hayaan, laakiin 10ka kale waa muttafaq, waa la isku waafaqsan yahay. shaaficiyadu waxay qabaan 14 oo waxay ka saarayaan saad. 15ka aynu sheegnay saad baa ka baxaysa. 10ka la isku waafaqsan yahay iyo 5ta la isku waafaqsan yahay saad mooyaane inta kale waa qabaan. 14kaasay qabaan, xanaabiladuna waa la mid. maalikiyadu iyaguna waxay qabaan 11 bay qabaan oo 10ka la isku waafaqsan yahay oo loo geeyey taa shaaficiyadu diideen saad. 11kaas agtooda lagu sujuudayay waa maalikiyada. xanafiyadana 15 oo laga soo reebay suurat اlxaj teeda labaad 14kaas iyaguna qabaan. axkaam baana ku dhismaysa. meesha qola ay yidhaahdaan aayad sujuudeed ma aha ma lagu sujuudi maayo, haddii salaada dhexdeeda aad ku sujuuddo salaadaadu halis bay gelaysa. shaaficiyadu markay leeyihiin suuratu saad sujuuddeeda lagu sujuudi maayo, sujuudu tilaawa ma aha. waxay leeyihiin salaada dhexdeeda haddaad ku sujuuddo oo aad u badheedho salaaddu waa ka kac, waa buraysaa bay dhahaan salaaddii. imaamka ku tujinaya xataa hadduu sujuudo oo isagu uu aaminsan yahay waaba xanafi ama maaliki aaminsan in lagu sujuudayo, way isweydiiyeen ma lagu waafaqayaa imaamkii? maya bay yidhaahdeen, waad sugaysa ilaa uu ka soo kacaya sujuuddaas. imaamka hadhidda aad ka hadhay sujuudu sahwi ma ula imanaysaa? maya bay yidhahdeen, loola iman maayo. walow qiil uu jiro odhanaya sujuudu sahwi maadaama imaamkii
sujuud lagu khilaafay hala la yimaado laakiin qowlka saxiixa xataa sujuudu sahwi la iman maayo halkaasay gaarsiiyeen waxay daliishanayaan kulle xadiidka inoo iman doona suuratu saad ku saabsan laakiin marka la isku duuduubo waa 15 mawduuc bay culimadu sheegeen inay tahay meelaha lagu sujuudo waana meelaha macruufka calaamadaha leh ee la yaqaan laakiin shantaas ayaa la isku khilaafsan yahay culimada qaar mid 16aad bay sheegeen laakiin iyada xadiidku ma iman suuratul hijr aayadii ugu dambeysay wa kum min as-saajidiin wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqiin aayadaas fasabbih bihamdi rabbika wa kum min as-saajidiin ay qaar waxay ka dhigeen sujuudu tilaawa laakiin ma sugna 15 kalaam macruufa oo culimadu ay ku kala duwan yihiin baabu sajdati tanziil as-sajda wuxuu baabu yahay sujuuda lagu sujuudayo suuratu tanziil as-sajda alif lam mim tanziil wallo yaqaana as-sajda loo yaqaano قال وحول البخاري حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحول كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوها يقرأ مداخرية في الجمعة صلاة الجمعة في صلاة الفجر صلاة إذا الصبح ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حديث كان كتاب الجمعة أي نهر قصة مرة وأين قصة قاضني هل كان وحل الله كاني سورة الليلة سورة السجدة وحكسوغان آيات سجودات باكسوغان وانا كوا لا يسكوا فقصين هيوي لكن حديث كنا مت المامين نبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح مركو الصحابة كتجينيه إنه كسجودي يا إنه كسجودين حديثك كما هذا لكن واحد شراء حديث كله ولو سنة كيدو أنه آذو حق بدنين تلمام النبي عليه الصلاة والسلام أنتو كتجيي سيد حديث علي بن أبي طالب نبي إنه كسجود عليه الصلاة والسلام لكن هذا واحد الله كاني سيد الله في ليه إنه النبي عليه الصلاة والسلام وكسجودي باب سجدة صاد وحباب ياهي سجود كسغا سورة صاد قال وحول البخاري حدثنا سليمان بن حرب الأزدي البصري وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي عاري قال وحيد حدثنا حماد وابن زيد الجهضمي البصري الأزدي عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال صاد سورة صاد ليلة ليس كما من عزائم السجود سجودها اللقويي بمعنى إن لقوا السجود لا أتكيي كما مدها وقد رأيت وانا أركى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها يسوى كالسجود يا ينارك ومسألة أنه كسوى هدلين عزائم السجود وكوى كلام لا أتكيي علماء يسكوا فقين أما صاد سجود ديدا شافعية يا حنابلة وحي إليهين معها سجود التلاوة معها سجود التلاوة معها شافعية وحي إليهين وسجود شكر وسجود إله اللوغة ما هذا عليني إنه الله سبحانه وتعالى توبدك أقبلي نبي الله داود إن توبدي لك أقبلي فسجدها داود توبة ونسجدها شكرا أي النبي كسرنا عليه الصلاة والسلام حديث النسائي وصوصاري نبي الله داود إسقوا أن لا توبت كان يؤسجود واستغفر ربه وخر راكعا وأناب أنقنا وحن سجودنا ما هذا علين إلهي أنو ما هذا علينين سجود الشكر هذه أي نقطنا صلاة لحدة لقوم سجوده يعني صلاة هذوته كان يفر الكاهد
haddaad xasuusato nicmo ilaahay uu kuugu nicmeeyey sax maaha inaad sujuuddo oo sujuudu shukri aad la timaado sax maaha shaaficiyadu tanina waa la mid bay yidhaahdeen la sujuudi maayo axaadiisay daliishanayaan xadiidkana ka mida saad laysat min cazaa'imi sujuud ee waa sujuud ilaahay looga mahad celinayo marka salaada dibaddeeda haddaad joogto oo aadan tukanayn waxaad u sujuudaysaa mahad celin ayaad u sujuudaysaa ku dayasho lagu dayanaya nabiyullaahi daawuud ayaa loo sujuudaya ibnu cabaas xadiidkan wuxuu inoogu tilmaamay sababta uu sujuudaya iyadoo aan la adkayn inay tahay inuu arkay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo sujuudaya waxaana inoo iman doonta fii tafsiiri suurati saad inoogu imanaya mujaahid inuu weydiiyey cabdilaahi bni cabaas min ayna akhadta sajdata fi suurati saad ibnu cabaasow ardaygiisa mujaahid baa weydiinaya aayadda lagu sujuudaya ama sujuudda saad xaggaad ka keenta wuxuu hi min qowlihi tacaala wamin duriyatihi daawuuda wasulaymaan waayuuba wayuusufa wamuusa wahaaruun wakadalika najzi lmuxsiniin wazakariya wayaxya waciisa wailyaas kul min aلصaalixiin waismaaciila walyasca wayunusa waluuطa wakula fadalna clى اlcaalamiin ula'ika aladiina hada allah fabihudaahu muqtadih wanabiyukum miman umira an yaqtadiya bihim yani waxaa la soo sheegay wanuuxan hadayna min qabl wamin duriyatihi daawuud dabeedna ambiyadii baa la taxay waxaa lagu soo gabagabeeyey ulaaئika aladiina hada allah ambiyadaasi waa kuwa alla hanuuniyey ee fabihudaahu muqtadih hanuunkooda ku dayo nabi maxamed baa lala hadlaya calayhi salaatu wasalaam ibnu cabaas waxa uu ihi fasajadaha daawuud nabiyullaahi daawuud baa saad ku sujuuday yani sujuuddaa sujuuday saad lagu sheegay nabi maxamedna calayhi salaatu wasalaam waxaa la amray inuu ambiyadaa ku daydo daawuudna uu ka mid yahay daawuudna waa ka sujuuday dabeedna saasaa loo sujuudaya yacni marka alla uu ka waramay sujuuddii daawuud ayaynu la sujuudaynaa fakhara raakican wa anaab waxyaabaha culimmada qaar ay u diidayaan tasaad waxaa ka mida lafdu sujuud inaanay ku iman waxay ku timi lafdu arukuuc bay ku timi sujuud kuma iman laakiin xadiidku hadduu ku sugnaaday nabiguna ku sujuuday waa lagu sujuudayaa sida ibnu cabaas tilmaamayo nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ku sujuuday waqad ra'aytu nabiya sal allahu alayhi wasalam yasjudu fiiha baabu sajdati najm wuxuu baabu yahay suurat najm sujuuda ku sugan qaalahu waxaa yidhi ibnu cabaas radia allahu canhuma can nabiyi sal allahu alayhi wasalam qaala waxa ui bukhaari xadaana xafs bnu cumar alxawdi alsdi albصri qala xadaana shucba bn اlxajaaj can abi isxaaq aلsabici cmr bn cabdillahi اlhamdani can اlaswad bn yaziid الnakhaci can cabdillaah wbni mascuud radia allahu tacala canh ana nabiya sal اllahu alayh wasalam qara'a wuxuu akhriyay suuraة الnajm fasajada waa ku sujuuday biha iyada fama baqiya ma hadhin axadu axad oo min alqowmi qowmkii ka mida ilaa sajada waa sujuuday faahada waa qaatay rajulu nin oo min alqowmi qowmka ka mida kafan sacab buu qaatay oo min xasan jaya aw turaabin ama ciida farafacahu kor buu ugu qaaday ilaa jabhatihi ilaa wajhihi wejigiis oo waa ku sujuuday wa qaala waxa uhi yakfiinii waxa igu filan haadakan falaqad ra'aytuhu waxaan arkay bacdu intaa dabadeed qutila iyadoo la dilay kaafiran isagoo gaala waa xadiikii laynoogu bilaabay kitaabka waxaa halkan loo keenay wanajmi in lagu sujuudayo waataynu hore u tilmaannay maalikiyadu waxay yidhaahdeen sujuuduhu waa koob iyo toban waxay ka tageen suurat lxaj sujuuddeeda labaad suurat lxaj laba sujuudood bay leedahay teeda labaad bay ka tageen waxay kaloo ka tageen saddexda mufasalkaa dhammaantood wanajmi iyo suurat lcalaq iyo suurat linshiqaaq suuradaha mufasalka la yidhaahdana waxa weeye waa ka tageen xadiidkani
qowlkooda lagu celinaya ama lagu dafcinaya ama qowlkooda ayuu bushinaya wuxuu tilmaamaya nabigu calayhi salaatu wasalaam wanajm inuu ku sujuuday wanajmina waxay ka mid tahay suuradaha mufasalka bay ka mid tahay mufasalka wataynu ku sheegnay laga bilaabo suuratu qaaf ama xujuraat ilaa laga gaadhaya naas wanajmina waa ka mid wey maalikiyadu waxay daliishanayaan lam yasjud الnabiyu salى اllahu عalayhi waslm fi lmufasali mundu an taxawala ila اlmadiina nabigu calayhi salaatu wasalaam intii madiina uu soo hijrooday suuradaha mufasalkaa sujuudaha ku sugan nabigu calayhi salaatu wasalaam kuma sujuudin xadiikaasi laakiin ma xoog badna xadii xoog badan maaha waxay kaloo daliishadeen camalu ahli lmadiina ayay daliishadeen oo caado ay u lahaayeen salaada markay tukanayaan suuradaha mufasalka inaanay ku sujuudin waxaanay noqonaysaa nabiga inay ka soo gaadheen calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii laakiin qowlkoodu waa daciif suurat lmufasal ama suwaru lmufasal sujuudaha kale waxay kaga duwan yihiin sidaynu qiyaasayno suuradaha mufasalka aad baa loogu tukadaa way soo noqnoqdaan marka haddii nabigu calayhi salaatu wasalaam joogtayn lahaa ama la joogteeyo waxaa laga yaabaa dadka aan salaada aqoonta badan u lahayn inay u maleeyaan sujuudo loo baahan yahay oo salaada la socota marka min hada albaab baa loo khafiifiyey maadaama aad loogu tukanayo suwar lmufasal haddii mar walba la sujuudo ishkaalka noocaasa laga baqay waa fi salaada marka la tukanayo laakiin waa sujuudo la jideeyey oo mashruuca in lagu sujuudo ama mufasal ha noqoto ama kuwa kale ha noqoto idan baabu sajdati najm suurat najm mufasalka ka mida in lagu sujuudayo ayaynu ka qaadanaynaa khilaafan lilmaalikiya baabu sujuudi lmuslimiin wuxuu baabu yahay muslimiinta sujuudoodii maca almushrikiina gaalada ay la sujuudayaan wlmushriku gaalku najasun waa najis wey laysa lahu wuduun wax weyse ay uma sugnaanin oo weyse ka ansixi mayso wa kaana bnu cumar radia allahu canhuma wuxuu ahaa yasjudu mid ku sujuuda calaa hayri wuduu weyse la'aan buu ku sujuuday calaa hayri wuduu weyse la'aan buu ku sujuuday ya waa rabo kataliya iyo sugan ya ilahay nagu astur wa kaana bnu cumar radia allahu canhuma wuxuu ahaa yasjudu mid ku sujuuda calaa hayri wuduu nuskhooyinka qaar sidaasaa ku yimi weyse la'aan buu ku sujuuday waana sida sawaabka ah yani isagoo aan weyse qabin ayuu sujuudu tilaawa sujuudaya cabdilaahi bni cumar qaala waxa uhi bukhaari xadaana musadad ibni musarhad qaala xadaana cabdulwaari wa ibni saciid qaala xadaana ayuub wa ibni abi tamiimata asakhtiyaani can cikrima mawla bni cabaas can ibni cabaas cabdilaahi bni cabaas radia allahu canhuma ana nabiya sal allahu alayhi wasalam sajada waa ku sujuuday binajmi suuradda wanajmi la yidhaahdo wasajada macahu waa la sujuudeen almuslimuuna muslimiintii baa la sujuuday iyo wlmushrikuuna gaaladii iyo wljinu jin baa la sujuuday iyo wlinsu insi baa la sujuuday warawaahu waxaa soo wariyay ibrahim ibnu طahmaan can ayuub asakhtiyaani isagoo ka warinayay xadiikana waa isla xadiidka aynu soo maraynay wuxuu tilmaamaya nabiga calayhi salaatu wasalaam xilligii maka markuu sujuuday ee uu akhriyay aayadda suurat najm gaaladii way isqaban waayeen muslimkii joogay iyo gaaladii dhammaantood waa sujuudeen cabdulaahi bnu cabaas xilligaa ma joogin oo waxa weeye maba dhalanba xilligaas cabdulaahi bnu cabaas laakiin waa loo sheegay oo nabiga ayuu ka qaatay calayhi salaatu wasalaam ama صaxaabi kale ayuu ka qaatay waa mursal صaxaabi wey waa la aqbalaya
jiniya insina isagu waxba kama ogeyn laakiin waa tawqiif insi buu ogaa laakiin jinka waxba kama ogeyn waa halka laga qaatay inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka ka maqlay imaam al-Bukhari xadiidkan wuxuu u keenay haddii loo nisbeeyey gaaladii inay sujuudeen iyadoo sujuudi aanay ka ansaxayn iyadoo weyse aanay u ansaxayn waxaa laga qaadanayaa sujuudu tilaawa in waxa weeye bilaa weyso lagula iman karo waana sida uu tilmaamaya aharka cabdilaahi bni cumar ee uu tilmaamay yasjudu calaa hayri wuduu weyse la'aan ayuu cabdilaahi bni cumar sujuudu tilaawa kula imanayay dabcan haddii salaad la tukanayo waa weyse qabaa salaada gudaheeda ee waxaynu ka hadlaynaa salaada dibaddeedaynu ka hadlaynaa weyse ma u baahanta mise uma baahnaa afarta madhabood waana sida culimmadu ay u badan yihiin waxay leeyihiin sujuudu tilaawa waa salaad ama salaadii qayb ka mida weeye wixii salaadii ay u baahnayd bay u baahan tahay weyse la'aan lagu sujuudi maayo waa in loo weyse qaato wey waa sida madaahibtu ay qabaan afarta madhaboodba ay ku dhan yihiin ibnu qudaama waxau ihi laa naclamu khilaafan ila can cumaan wax khilaafa kuma ogin ilaa wixii laga wariyey cumaan bnu cafaan mooyaane qurطubi waxau ihi isaguna laa yuclamu fiihi mukhaalif ila maa ru'ya can cabdilaahi bni cumar wax khilaafsan ma ogin masalada noocaasa sujuudu tilaawaha in loo weysaysanayo waxaan ka ahayn cabdulaahi bni cumar waxaa kaloo laga wariyey camr bni sharaaxiil ashacbi ayaa isaguna fatwooday weyse inaanay u baahnayn masaladuna waxay ku dhisan tahay sujuudu tilaawa ma salaad ba mise ma aha jumhuurtu waxay leeyihiin waa salaad ama waa salaadii qayb ka mid oo xukunkeeda la siinayo culimmada qaarna waxay leeyihiin salaad ma aha waayo salaadu waa ta lagu qeexo taxriimuha altakbiir wa taxliiluha altasliim waxaa lagu galaa allahu akbar baa lagu galaa assalaamu calaykumna waa lagaga baxaa arkaan iyo aqwaal ayay leedahay laakiin sujuud mujarada waxa weeye salaad ma aha xagga qiyaaska iyo nusuusta iyo qawaacidda sharciga haddii la eego qowlkaa laga soo wariyay cumaan ibnu cafaan iyo cabdilaahi bni cumar iyo shacbi bacd almuxaqiqiin sida ibnu taymiyana ay xoojinayaan qowlkaasaa xoog badan laakiin maca dalik culimmada badankoodu halkaa ay mareen in lagu dadaalo ayaa wanaagsan oo qofku hadduu sujuudayo uu u weyse qaato sida ta noocaasa ayaa habboon oo wanaagsan min baab alixtiyaad laakiin xagga qawaacidda waxaa xoog badan inaanay weyse u baahnayn waayo salaad ma aha waa sujuud mujarada wey waxay kaloo jumhuurtu qabaan oo loo badan yahay sujuuddaas takbiir in laga horaysiinayo midna laga dambaysiinayo lafteedu waa khilaaf laakiin sidaasaa loo badan yahay in la yidhaahda allahu akbar kadibna la sujuudo kadibna la yidhaahda allahu akbar oo la soo kaco waa sida loo badan yahay culimmada qaar waxay leeyihiin adila kuma iman takbiiraadkaa lala imanayo marka waa la sujuudayaa oo keliya salaamu naqsi atixiyaadna laga dambaysiin maayo waa marka salaada dibaddeeda la joogo salaada gudaheeda haddii la yidhaahdo waa mashruuco waa la jideey sida axaadiistu tilmaamayso oo qofku salaada gudaheeda aayad sujuud u dhammeeyo oo la yidhaahdo salaada dhexdeeda waa sunna inaad sujuuddo in takbiir lala yimaado marka la sujuudayo iyo marka laga soo kacay iyadu waa sunna wey waxaa loo daliishanayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam kaana yukabiru kulamaa khafad wa kulamaa rafac mar kastoo nabigu uu hoobto iyo mar kastoo sare u soo kacaba labadaba waa takbiiranaya nabigu calayhi salaatu wasalaam marka xadiidka waxaynu u daliishanaynaa salaada dhexdeeda in lala imanayo takbiirtii lala imanayo oo xadiiskaasaa loo daliishanaya khaarij asalaana saynu tilmaanay jumhuurta ayaa qaba in sujuudani laba takbiirood ay u dhaxaynayso walow culimmada qaar ay diideen
laakiin la yimaada ayaa fiican marka la sujuudayo iyo marka laga soo kacay. adkaarta lagula imanayo sajada wajhi lilladhi khalaqa wa shaqqa sam'ahu wa basara bihawlihi wa quwwatihi fatabaraka Allahu ahsanul khaliqin. sidaas way soo aroortay. waxa kale oo soo arooray Allahumma aktub li biha 'indaka ajra وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. ولو سند كذا ضعفه كسغن yahay laakiin ila akhriya wax baasiya malaha way ku dhaantaa ضعفها kusugnaado ka la soo wariyay Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala Zaad al-Ma'ad ka ku sheegay. باب وحو باب ياهي من قرأ كي أخرياء السجدة سجودة أي آية السجدة ولم يسجد عن سجود. قال وحو لبخاري حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع الزهراني العتكي قال وحو حدثنا إسماعيل بن جعفر الأنصاري المدني قال أخبرنا يزيد بن خصيفة أو باللون اسبي ويزيد ابن عبد الله ابن خصيفة عن ابن قصيط وأووي ويزيد ابن عبد الله ابن قصيط عن عطاء بن يسار مولى ميمونة أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم وحو الشاقي زيد أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم نبي إنه كو أخريي والنجم سورة اللي يلاهده فلم يسجد فيها نبيكم سجود. حديث كان وحو تلمامية إن لا أخريو آية السجدة وآن لغو سجود إني بنانتهي والله قادنا يو إني سنتهي. حديث كان وحو جوابيه حنفية وأرنا إياه إن السجود وواجب. حديث كان لغو جوابيه نبي عليه الصلاة والسلام كما سجودين. قارئ لكن وحوها زيد بن ثابت وحو كسغي النبي إنه سجوده كمو سجود النبي عليه الصلاة والسلام إسنما سجودين إسونا سجودين. حديث كسيدة إنه ظاهر كيسا كأركينه نكا اللي هذا عطاء بن يسار سأل زيد بن ثابت فزعم وحو الشيخ زيد waxaa soo degdegaysa inuu weydiiyay ma lagu sujuudaya aayadaha sujuuda saasa soo degdegaysa laakiin su'aashu mawduuca kuma saabsanayn mawduuc kale ku saabsanayn sida Imam Muslim oo saxiixiisa ku cadaynayo oo waxa la weydiiyay عن القراءة مع الإمام أي زيد بن ثابت لويدي عطا ويدي عن القراءة مع الإمام إمامكم مركو ددك توجينايو قرآن كما لا أخرينايا مسوى الله أمسيا طبعا زيد بن ثابت وحكو جوابي ليس مع الإمام قراءة إمامكم ددك هدو توجينايو والله أمسيا حتى فاتح هذا ولا أخرين ما يا إمامك وزعم طبعا حديث كان الله شيء مركز سؤال موضوع سيكون صابصنايد إمام البخاري لما شيء ووحنوا شيء ليس مع الإمام قراءة وموقوف وهذا الأولية هي زيد بن ثابت هذا الأولية هي إمام البخاري نوحو الدنين يي مرفوعات أحاديث النبي قارسيسان عليه الصلاة والسلام طلبات انت لفتي ده waxa laga yaabaa inuu uga tagay oo soo gaabiyay Imam al-Bukhari wuxuu qabaa Faatihada inaan laga tagayn xaal laba hatta imam hadii la tukanayo bal kitab Abu Kalif al-qira'atu khalf al-imam illa jideeyay imamka gadaashiis in Faatihada la akhriyo marka mas'ala uu ku khilaafsan yahay Zayd ibn Thabit qowlkiisa waxba ma soo naqlin ee uu soo gaabiyay maxallu shaahidku waxa uu yahay in aan lagu sujuudin suurada la yiraahdo wan najmi kuwa kalena waa la mid waa sunni qala waxa uu Bukhari hadathana Adam ibn Abi Iyas al-Asqalani qala hadathana ibn Abi Dhib Muhammad ibn Abd الرحمن قال حدثنا يزيد ابن عبد الله بن قصيط
عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم أيان ku akhriyey فلم يسجد kuma sujuudin فيها gudaheeda nabigu عليه الصلاة والسلام nabigu kuma sujuudin baabu sajdati إذا السماء انشقت wuxuu baab u yahay sujuudda suuradda ku sugan suuraة الانشiqاaq sujuudeeda ma lagu sujuudaya mise lagu sujuudi maayo suuraة الانشiqاaqna waxay ka mid tahay suuradaha aynu ku magacawnay almufasalka ayay ka mid tahay qaala waxa uhi bukhaari xadaana muslim ibn ibrahim alfarahidi alsdi wa mucaad bnu fadala الزهراني البصري qaala waxay yidhaahdeen أخبرنا هشام وابن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى وابن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف قال وxuu hi رأيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد بها waa ku sujuuday فقلت waxaan ku ui ya أبا هريرة ألم أرك miyaanan ku arkayn تسجد adoo ku sujuudaya سورة الانشقاق qaala wuxuu hi low lam ara النabiya salى اllahu عalayh wasalam haddaanan nabiga arki lahayn sajada isagoo ku sujuuday lam asjud anama sujuudayn xadiidku wuxuu tilmaamaya bukhaariyo muslimna ay isku waafaqeen nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam suuraة اlinshiqaaq inuu ku sujuuday sujuudeeda waida quri'a calayhim اlqur'aanu laa yasjuduun iyadoo la khilaafayo maalikiyada oo odhanaya suwar اlmufasal والنجم iyo الانشiقاaq iyo الcalq inta midna inaan lagu sujuuday iyagoo lagu khilaafayo baabun wuxuu baab u yahay man sajada kii u sujuuday lisujuudi الqaari'i kii akhrinayay sujuudiis وqaala بnu mascuud cabdالlahi bnu mascuud waxa uu yii litamiim bni xadlam ninka la yidhaahdo tamiim ibni xadlam abu salma الضbi alkuufi wlxaal huwa hulaamu isagoo wiila yani dadiisu ay yar tahay faqara'a waa ku akhriya calayhi dushiisa sajdatan aayad sujuudeed tamiim baa akhrinaya waxaa dhegaysanaya cabdullah waxa weeye ibnu mascuud faqaala waxa uhi usjud sujuud fa anta adigu imaamuna fiiha adaa noogu imaama yani tamiim ibnu xadlam ayaa waxa weeye qur-aan uga baxaya cabdilaahi bni mascuud qur-aan baa laga dhegaysanayay markuu soo gaadhay aayad sujuudeed ayuu cabdilaahi bni mascuud ku yihi adigu sujuud arday buu ahaa shiikhiisu sugay bal shiikhiisu inuu sujuudo isaguna ka daba sujuudo cabdulaahi bni mascuudna waxa uu yihi maya adigu maadaamaad akhrinaysa adigu noo sujuud adaa noogu imaama marka imaamku ama qofkii qur-aanka akhrinaya hadduu ku sujuudo waa lala sujuudaya intaasuu imaam bukhaari inoo baabaysanaya qaala waxa uu hi bukhaari xadaana musadad ibni musarhad qaala xadaana yaxya ibni saciid alqaطaan can cubayd illaah ibni cumar alcumari qaala waxa uu hi xadaanii naafic mawla bni cumar can cabdilaahi bni cumar radi allahu tacala canhuma qaal kaana nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu wuxuu ahaa yaqra'u mid akhriya calayna dushayada asuurata suurad fiiha ay ku sugan tahay asajdatu aayad sujuudeed ay ku sugan tahay fayasjudu waa sujuuday wanasjudu waa sujuudaynay xataa maa yajidu ilaa aanu ka helayn axadunaa midkaayo mawdica jabhatihi foodiisa meel uu dhiga ilaa uu waayo yacnii cidhiidhiga meeshu ay cidhiidhiga tahay iyo badnaanshaha dadku ay badan yihiin ilaa qofku uu waayo xalqad baa la fadhiya nabiga lagu dhowa calayhi salaatu wasalaam ilaa qofku uu waayo meel uu ku sujuudo qaabkeebuu u sujuudayaa baabka ugu dambeeya insha allahu tacala baynu ku gaadhayna laakiin halkan waxaa lagu tilmaamay nebigu markuu sujuudo inay ka daba sujuudayeen waa asujuudu lilqaari baabu isdixaami nnaas wuxuu baab u yahay dadku inay isku cidhiidhiyaan idaa qara'a alimaamu imaamku hadduu akhriyo asajdata sujuudi yani xaaladdu inay xaalad cidhiidhiya tahay qaala waxa uhi bukhaari xadaana bishr bnu aadam albaqdaadi addariir nin indhalaa buu ahaa bukhaarina halkaa xadiid buu ku leeyahy mid labaad kuma leh
قال حدثنا علي بن مسهر أبو الحسن الكوفي قال أخبرنا عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم نبgu wuxuu ahaa yaqra'u mid akhriya sajdata sujuud aayad sujuud wanaxnu anaguna cindahu agtiisa aanu nahay jumladu waa xaaliya walxaal naxnu anagu aanu nahay cindahu agtiisa fayasjudu nabigu waa sujuuday wanasjudu macahu waa la sujuudayn fanasdaximu waanu iscidhiidhyaynay xataa maa yajidu axaduna ilaa maaya aanu ka helin midkaayo lijabhatihi foodiisa ama wejigiisa mawdican boos yasjudu calayhi uu ku sujuudo. tanina waxay tilmaamaysaa sida loo danaynayay sujuudu tilaawa saxaabadu inay ku dadaalayeen inay sujuudaan ilaa xaalku uu ka gaadhayo qofku meeluu ku sujuudaba inuu waayo. hadday sidaa cidhiidhi u noqoto wataynu tilmaannay baabka dambe insha allahu tacala aynu kaga hadli doonaa. baabun wuxuu baabu yahay man ra'aa kii arkay ana allaha caza wajal lam yuujib inaanu waajibin asujuuda sujuud, yacni ciddii ku tagtay sujuudu tilaawa inaanay waajib ahayn. wa qiila waxaa lagu yihi licimraana ibni xusayn waxaa la yidhi arajulu nin yasmacu maqlaya asajdata aayad sujuudeed walam yajlis laha aan u soo galo fadhiisan, yani ma sujuudaya mise sujuudi maayo. yani walam yajlis laha waa mustamic. waxaynu haynaa alqaari waa kii aayadda akhrinay, laba waa almustamic waa kii inuu dhegaysta u soo fadhiistay, jalasa laha waa mustamic, yani wuxuu u fadhiyaa inuu dhegaysto waa mustamic wey. midina waa saamic, lam yajlis laha umuu fadhiisan, waa nin halkan iskaga wardinaya wuxuu maqlayaa mid aayad akhrinaya, isagaa umuu fadhiisana dan kalu meesha u fadhiyaa, ama adduunya ama aakhiro ayuu meesha u fadhiyaa, laakiin ninkan qiraa'adiisa uma soo fadhiisan. waxaa la weydiiyey ninka noocaasee saamica ah codka unbuu maqlayaa, laakiin inuu dhegaysto uma soo fadhiisan, haba fadhiya hadduu doono. ka noocaasaa la weydiiyey walam yajlis laha waa maqlay, yasmacu waa saamicu asajdata ayuu maqlay, walam yajlis laha uma qastiyinoo uma soo fadhiisan. qaala waxa uu ihi ara'ayta waxaad ka warantaa low qacada laha bal hadduu u fadhiista yada ka waran. yani waxaad i weydiinaysaa kii iska maqlayey, yani wuxuu leeyahay kii xitaa u qastiyey xaq buu leeyahay inaanu u fadhiisan. kaannahu waxaad moodaa cimraan ibnu xusayn laa yuujibuhu calayhi inaanu ku waajibinayn kii dhegaysanayay, iskaba dhaaf kii maqlayay ee aan dhegaysanayn. midna waa maqlaya oo keliya, midna waa dhegaysanaya oo inuu dhegaysto maqlu u qastiyey. marka cimraan ibnu xusayn wuxuu isticmaalayaa qiyaasu lwlaa, yacni kii u qastiyey inuu dhegaysto haddaanay ku waajibin, kii iska maqlayay ee aan u qastiyinna ku waajibi mayso. soo warcad ma hadalka saasuu dhigay. wa qaala salmaan alfarisi waxa uu laa yasjudu ma sujuudayo ilaa an yakuuna aahiran, inuu weyse qabo mooyaane ma sujuudayo. maanboodi wa qaala salmaan waxa uu ihi maa lihada hadowna taa umaanaan soo kallihin. yani salmaan oo waddada hayo soconaya ayaa wuxuu soo baray qolo qur-aan akhrisanaysa, dabeedna isagoo ag baraya oo dantiisa u socda ayay sujuudeen. waxaa la yidhi maxaad u sujuudi weyday? wuxuu hi maa lihada hadowna, sujuudu tilaawo umaanaan soo kallihin. yani hawlo kale aanuu socon, hawlo kale ayaanuu socon. yani saamic buu noqday ee mustamic ma ahayn. marka salmaanna hadalkiisa waxaa laga qaadanaya haddii la maqlo in la sujuudaa inaanay waajib ahayn. wa qaala cumaanu radia allahu canhu wuxuu hi inama sajdatu sujuuddu waxay saaran tahay oo loo jideeyey calaa man istamacaha kii dhegaysanayay. calaa man samicaha iyo calaa man istamacaha waa laba kala duwan, saamic iyo mustamic. saamic waa maqle, mustamicna waa dhegaysta wey, u dhegaysanaya.
yani uu ku talagalay inuu dhagaysto. marka wuxuu leeyahay Uthman ibn Affan sujuudan waxa loo jideeyay kii ku talagalay inuu dhagaysto ka noocaas ayaa sujuudaya, laakiin kii maqlayay isaga looma jiday. وقال الزهري وحول لا يسجد ما سجوديه إلا أن يكون طاهرا إنه ويسقب مويانه. فإذا سجدت هدئ سجوده وأنت في حضر أذيقوا النقاديك السوغان قرياقيا مسجدكاقي جوغا فاستقبل قابل القبلة قبلة. فإن كنت هدئته وبمعنى سجود فإن كنت هدئته راكبا متقاديد فوشان وصعطاه فلا عليك دشاد ما أهان حيث كان وجهك يعني أن تسجد إن سجوده حيث كان وجهك جهاد حلك أي تهي إن وحوية السجود وحدي بك مصارنا. يعني وحو تلمام يا زهري قفكو هدود نقاديس كي هي أو تشوغو إنه وحوية سجود أيو انتو قبلة أجيستو. أما هدود سعودال يهي قاربا بفوشين آيادي سجود أيو دمي مال الله لماشا قاربا السعودال أيو سجود يا قبلة ومباهنا. يعني قاربا دوشي سالو سجود يا قاديد كالفوشين هدي أي أدكاتا إن ستو سالو سجودو إيماء بالله السمينية والله إشارية. وحالك الله قات وحين أكسونا هاي قاديد كالدوشيس وحلقوا لي ماذا صنياش هدي واجب نقول الله هاي سجود التلاوة زهري ما يلاهدين قاديد كالدوشيس هلقوا تكدو ويورين وصامرنا نبقى عليه الصلاة والسلام إنه كسرنا يسنيي هدو سفر ياهي قاديد كالدوشيس. أما في المكتوبة فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل عن راحلته هدي فر اللقطة نبقى قاديد كايو كدقي. آثار تنوران وحي تلماميسا سجود إناني واجبهين وانا تينو هراو تلماني وانا سيدا جمهورتو أي قبان وانا سيدا حديثو تلماميسو نجمي نبقى كما سجودين يا حديث الله متكا تلماميسين لغو سجودين. حديث كان إمام البخاري ونوكيني أي يسقنا كمذا. قال وحول البخاري حدثنا إبراهيم بن موسى ابن يزيد التميمي الرازي قال أخبرنا هشام بن يوسف الصنعاني أن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أخبره محوشا قال وحول أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي يسقنا هلك حديث بولي مثل بعض ماله بخاري دي بصانغان ماي هرنا لو مسو شيء عن ربيعة بن عبد الله ابن الهدير التيمي قال أبو بكر وحول بن أبي مليكة وكان ربيعة نك ربيعة الليلة هذا وحوها من خيار الناس ذاتك كوا أغو وناكسن بو كمدها. عما حضر وحشاق ربيعة وحكو رمي عما حضر ربيعة نك ربيعة الليلة هذا وحو كسو قاري أما قوبشو قووها من عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يعني وحيابه وكسو قاري أما قوبشو قووها عمر بن الخطاب أيو شاقي وحنا كمده قصدنا كمده. قرأ واخر يا عمر بن الخطاب يوم الجمعة مالنتي جمعة على المنبر منبر كدشيس بسورة النحل حتى إذا جاء مركي يمي أما أسو قاري السجدة آيدي سجوده يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون هل كسلوا سجودية لكن وحكوا الرئيس ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون هل كسلوا سجودية. نزل وسودق منبر كوكا سودق فسجد وسجودي وسجد الناس تدكنا وسجودين حتى إذا كانت مركياتي الجمعة القابلة جمعة دين سو قابلة يسيد قرأ بها إسلاء يدي بكو آخري منبر كدوشيس حتى إذا جاء مركي وسوقاري السجدة آيدي سجود مركو سوقاري قال وحول يا أيها الناس وحاركي دتك يتفحيتي ويسد دياريين سجودان تبدنا وحول يا أيها الناس ضدياه إنا أنقو نمر وحن صمرين بالسجود آيات سجودات بين صوته فمن سجد كي سجودا فقد أصاب سنة بوافقي
waman lam yasjud kii aan sujuudin ee ka taga falaa ima calayh wax dembii korkiisa ma ahaanin. walam yasjud ma sujuudin cumar radia allahu tacaala canh wazaada waa ziyaadiyey naaficu naafic can ibni cumar radia allahu canhuma ina allaha alle cumar baa odhanaya lam yafrid ma waajibin asujuuda sujuuda tilaawada ilaa an nashaaa anagu inaanu doonno mooyaane. xadiikani wuxuu ku cadyahay isaguna oo cumar bnu khaaab uu tilmaamaya inaanay waajib ahayn. ziyaadada naafic ee ibnu cumar uu soo warinayo iyaduna waa ku caddahay oo wuxuu leeyahay cumar bnu khaaab na laguma waajibin. yani waa laga yaabaa ficilkiisa in la yidhaahdo waa ijtihaad, laakiin hadalka dambe wuxuu yeelanayaa xukmu rafci buu yeelanayaa oo wuxuu leeyahay cidi naguma waajibin, yani nabigu calayhi salaatu wasalaam naguma waajibin, xukmu rafci buu leeyahy. waana sida jumhuurtu qabaan, waxaan xanafiyada ka ahayn sujuudu tilaawa waa sunna lala imanaya wey, laakiin waajib ma ah. baabun wuxuu baabu yahay man qara'a kii akhriya asajdata sujuuda fi salaati salaada dhexdeeda fasajada biha kadibna ku sujuuda. qaala waxa uhi bukhaari xadaana musadad ibni musarhad qaala waxa uhi xadaana muctamir wa ibni sulaymaan ibni darkhan ataymi qaala waxa uhi samictu abi wa sulaymaan ibni darkhan التيمي الكوفي قال وحولي حدثني بكر وابن عبد الله المزني عن أبي رافع قال وحولي صليت وحلت كذا مع أبي هريرة العتمة صلاة عشاء فقرأ وحو أخري إذا السماء انشقت فسجد وسجودي فقلت وحن كولي ما هذه سجودا محياهي صلاة عشاء له سجودي قال وحولي سجدت بها waan sujuuday khalfa abilqaasimi sala allahu calayhi wasalam nabiga gadaashiisa ayaan sujuuday falaa azaalu ka zuuli maayo asjudu fiiha inaan ku sujuudayo xataa alqaahu ilaa aan kala kulmayo oo bimacnaa aan ka dhimanayo. xadiidkan isaguna wuxuu daliil u yahay abu hurayra radia allahu tacaala canh ayaa nabiga wuxuu ka warinaya waana kaga dayday inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam suurat linshiqaaq saxaabadii salaad cishe ku tujiyey kadibna nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku sujuuday. waxayna daliil u tahay salaada dhexdeeda sujuudu tilaawa in lagu sujuudayo. waxay kaloo daliil u tahay suwar lmufasal marka lagu tukanayo in lagu sujuudayo, daliilna way u tahay khilaafan lilmaalikiya. baabun wuxuu baab u yahay man lam yajid kii aan helin mawdican boos lisujuudi sujuuda aan u helin min azixaami cidhiidhiga dartii. qaala waxa uhi bukhaari man lam yajid mawdican lisujuudi maca alimaami kul aniga way ga dhacday maca alimaami imaamka haddii lala sujuudayo min azixaami zixaamka. dabcan marka zaxmadu imanayso keligaa haddaad tahay hadal ma leh, cidhiidhi ma jiro, laakiin marka imaam lala tukanayo ayaa cidhiidhigu imanaya jamcu markuu la sujuudayo, waana sida xadiidku uu ku saabsan yahay. baabun man lam yajid mawdican lisujuudi maca alimaami min azixaam. qaala waxa uhi bukhaari xadaana sadaqa wa ibn lfadl almarwazi abulfadl almarwazi قال وحول أخبرنا يحيى والقطان يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وحول كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوها يقرأ من أخرياء السورة التي تاسو فيها أي كسوغنتها السجدة السجود فيسجد نبي وسجودي ونسجد أنه نوى السجودين حتى ما يجد إلى ما يانو كهلين أحدنا مدكايو مكانا بوس لموضع جبهته هل كسجود يا مفوديس موضع سجوده من جبهته إلا ميل أردقه فوديس أوايو هذه حالة سوكلا أي تماده
sidee loo sujuudaya dadkii waaba cidhiidhi darsi baa la dhegaysanaya qof waliba wuxuu haystaa inta uu fadhiyo kaliya waa la sujuuday waxa weeye xagee lagu sujuudaya yani dhulkii jaanis u heli maysid ninbaa waxa weeye taagan ama fadhiya jaanis uma haysatid culimadu laba qaab midba waa la yeelayaa bay yidhaahdeen qole waxay yidhaahdeen fattaquu llaha ma statactum waana sida imaamu albukhaari u wato fattaquu llaha ma statactum sida aad tahay baad u sujuudaysa labada qofka kaa horeeya dhabarkiisa haddaad la gaadhayso waxa weeye dhudhunkiisa cagihiisa korkoodaad ku sujuudaysa yani ka kaa horeeya korkiisa ayaad ku sujuudaysa waa fattaquu llaha ma statactum qaar waxay yidhaahdeen yasjudu calaa dahri akhiih dhabarka walaalkiibuu ku sujuudaya halka uu soo gaadho ayuu ku sujuudaya laakiin waa inaanu dadka ka hadhin waa inuu sujuudo wey halkuu soo gaadhaba qowlka labaad ee culimmada badankoodu qabaan waa inuu sugo markay soo kacaan ee la soo kaco markaa inuu meel eegto uu ku sujuudo salaadii faralkaa la mida way dhacdaa hadda xaramka marka waxa weeye tawaafkii la tawaafayo maalinka tobnaad oo kale maalmaha zaxmadda ugu badan tahay cidhiidhigu badan yahay iyadoo dadku ay sidaa isugu dhegan yihiin baa salaadii la qiimaya meel loo dhaqaaqa ma leh fakat ma leh salaadii cisha ama duhur baa lagu qiimaya sidaadaad ku tukanaysa dabeedna adoo sidaa u quturanoo u taagan baad rukuucaysaa sujuudaysa salaaddii baad gelaysaa dabadeedna waxa weeye rukuucda markay noqoto in yarbaad madaxa saa odhanaysa sujuuddana waa intii laga gaadho haddii rukuuc caadiya la helayo waad rukuucaysaa sujuuddana waxaad ku sujuudaysaa sidaa hadda aynu tilmaanay meesha aad soo gaadho laakiin waxba ka hadhi maysid laakiin jumhuurtu waxay leeyihiin qofku waa sugayaa marka dadkii ka horreeyay sujuudda ka kacaan waxoogaaga habsankaana waa lagu khasbany intuu ka habsaamo ayuu sujuudayaa bay yidhaahdeen laakiin sida imaamu albukhaari u wato culimo badanina ay ku tageen in badanoo culimmada ka mid ay ku tageen imaamu axmed iyo isxaaq bacdulmuxaqiqiinna ay xoojiyeen qofku wuxuu u sujuudayaa qaabka uu u soo gaadhay ayuu waxa weeye u sujuudayaa wallahu aclam sal allahu waslm cala nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi waslem waqtu nahyi ma la sujuudaya mise la sujuudi maayo haddii la yidhaahdo waa salaad haddii la yidhaahdo waxaa gelaya khilaafkii culimmadu ay isku hayeen shaaficiyadu waxay leeyihiin waa salaatun laha sabab waa shay salaad ah ama salaad la mida sabab buu leeyahay sababtuna waa tilaawo waa la sujuudaya maalikiyada iyo xanafiyada iyo xanaabiladuna waatay qabeen waxa weeye inaan loo sujuudayn inaan la tukanayn waqtu nahyiga inaan la tukanayn marka waqtigu hadduu waqti nahyi yahay oo aayaddii aad dhammayso jumhuurtu waxay leeyihin la sujuudi maayo waa waqti salaad la diiday wey shaaficiyaduna sabab bay leedahay sababtaasaa loo sujuudaya qowlka shaaficiyadana xoog badan sal allahu cala nabiyina muxamed